madaxweynayaasha maamul goboleedyada Galmudug, Jubbaland iyo Puntland ayaa maanta socdaal dheer oo lagu ku soo dhex maray bartamaha magaalada Cadaado kaas oo loogu magac daray isdhexgalka iyo nabad ka shaqaynta. Inta madaxweynayaasha sidoo kale ay ku jireen socdaalka ayay ku indheeyeen qaab dhismeedka magaalada, ammaanka iyo horumarka. Mas'uuliyiintan oo warbaahinta kula hadlay bartamaha magaalada Cadaado ayaa sheegay in amni iyo horumar la taaban karo uu ka jiro xarunta ku meel gaarka dowlad goboleedka Galmudug. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa sheegay in kulamo gaargaar ah saacadihii la soo dhaafay ay yeesheen madaxweynayaasha Galmudug iyo Puntland kaas oo uga wada hadleen sidii nabad loogu soo dabaali lahaa gobolka. sida labada deegaan labada dowlad goboleed ee deriska ay walaalaha ah wada shaqayntooda iyo ixtiraamkooda iyo nabadda ka wada shaqayntooda sida labada hogaamiye ay daacad uga tahay aan isleeyahay labadubana way u leeyihiin daaqo iyo qudrad inay hawsha ka shaqeeyaan qodobada aan ku heshiinayna ay ka mid ahayd bal marka ugu horeeya iyadoo bishii Ramadaan lagu jiro in ay tahay inay baaq u soo jeediyaan oo lagaga hadlayo baaqaas sida dadka walaalaha ah ee ku wada nool labadan gobol gaar ahaan gobolka Mudug xasaradaha ka taagan loo dejin lahaa. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa si wada jir u sheegay inay ka shaqayn doonaan nabadda isla markaana ay sameyn doonaan ciidamo isku dhaf ah kuwaas oo wajaha soo afjarka colaadda ku soo laalaabatay gobolka Mudug. madaxweyne Xaaf waxaan ku wada hadalay in aanu ka wada shaqeyno nabadda in si ilaahinimo ah oo daacadnimo ah oo la ka cabsi leh aan uga wada shaqeyno nabadda Mudug iyo Puntland iyo Galmudug. waliba waxaan rabnaa sida aan kala hadlay saraakiil Puntland ah in ciidan isku dhaf ah oo dhulka ilaaliya xadka ah oo nabaddaas ka shaqeeyahay in la sameeyo oo ciddii markaasi shiddo iyo shaqaqa wada gacan bira lagu qabto. hadda waxaan dhex taaganahay magaalada Cadaado dhexdooda banaankaan taaganahay waa nabad alxamdulillaah rabbil caalamiin. ilaahay nabaddan hanoo kordhiyo hanoo ballaariyo ummadda reer Galmudug iyo reer Puntland waxaan idiin sheegaynaa aniga Cabdiweli waana kaas shacabka iyagoo israaca idinkuna isu calool furnaada wax allaaliya wixii dhibaha way joogsan doonaan jidadka waa furaynaa sida ugu dhaqsaha badan arrinta yar oo godad iyo gacna falahadda ka jirtana ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan u istaagto odayaal iyo saraakiil iyo ciidamaan u diri doonaa sidii madaxweyne Cabdiweli u sheegay ciddii arrintaa ku xadgudubtana waa lagu ciqaabi doonaa labada dhinacba. war kale meesha ma yaallo Soomaaliya ha midowdo Galmudug iyo Puntland waa kuwaas ishii bugtaay ku bikaacso waa socdaalkii ugu horeeyay oo noocani oo kaleeta ay madaxweynayaasha maamuladan ay ku maraan bartamaha magaalada Cadaado iyagoona diiradda saacadihii la soo dhaafay kulamo ay yeesheen ku saaray sidii loo soo afjari lahaa colaadaha ku soo laalaabtay qaybo ka mid ah gobolka Mudug. Maxamed Maxamuud Owaadan TV-ga caalamiga Universal Cadaado.